بسم الله الرحمن الرحيم مقعد ددوينها الصوماليات جمهورية فدرالك الصومالية محكمة gobolka banaadir qaybta ciqaabta laanta caadiga maanta oo taariikhdu tahay 25 bishii 6 maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 120 faqradiisa saddexaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 668 2026 kaasoo eedeysanaad ay ka tahay Saadiya Macalin Cali Xasan ina Faadumo Maxamed Cali 29 jir ku dhalatay xamar degan degmada Boondheere lana xiray 12 bisha 4 2026 kuna eedeysan qodobada kala 269 faqradiisa labaad oo lala akhriyay 45 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 320 oo lala akhriyay qodobka 45 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka maxkamadda gobolka banaadir si waafaqsan qodobada 120 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay koow eedeysanaad Saadiya Macalin Cali Xasan kuweyda faldambiyeedka ku xusan qodobka 320 oo lala akhriyay qodobka 45 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed weyna ka bariyeesh labo waxay dambiile Saadiya Macalin Cali Xasan ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka 269 faqradiisa labaad oo lala akhriyay qodobka 45 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 3 sano oo xarig ah xukunkan waxa ka furan racfaan ku siman muddada sharcigu tilmaamay xukunkan waxa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 25 bishii 6 2026 wabillahi tawfiiq gabagabadaydu ku bilaabayaa mar haddii aan la soo baldhigin kicin rabshado wato dhiirigelin falal sharci darro ah waa labada tiir oo ugu adag eedda xafiiska xeer ilaalinta uu soo jeediyay waxaa muhiim ah marka in la helo fadeexad caalami ah sida ay tilmaameen wax fadeexada oo caalami ah oo caddeemo loo keenay ee maxkamadda loo soo gudbiyey ma aysan jirin laakiin eray ahaanay u isticmaaleen dacwaddan sida nidaamka uu qababa waxay ahayd dacwadda ciqaabta sideedaba waxaa lagu dhisaa marag wixii uu sheegay ayaan daro dacwadda maanta aan u taagannahay wax markhaatiya ee maxkamadda la hor keenay ee culays looga dhigi kara eedeysanaha ma aysan jirin oo ay xafiiska xeer ilaalinta uu soo gudbiyey halka la soo baldhigay shaashadda ereyadii iyo hadalladii laga daawanayay saakay cidda wax laga weydiin karto oo sida saxda ah u tilmaami karto waa Saadiyo xafiiska xeer ilaalinta ADC wuxuu ku dhisay ama cadeymihii oo hor keenay wuxuu u adeegsaday aragti ama sida ay la noqotay xafiiska cajaladihii la daaray ama la istusay cid kasta maanta madanu gudoomiye maxkamadda hor taagan haddii la tuso qof kastaba aragti gaar ah ayuu ka soo jeedinaa ama uu u sheegaa waxaan rabaa inaan xuso xafiiska wuxuu tilmaamay in Saadiya beejkeeda ay ku tixan yihiin 48,000 oo followers ah marka meesha la raba in la tilmaamo waxa waaye followerska beejkeeda ku tixan oo 48,000 ama aha in la soo qaato ee waxa la rabaa clipka markii laga soo saaro shaashada in la dhaho intaasoo view ah oo daawadayaal ah ayaa daawaday lama cadeynin marka lamana tilmaamin inta daawatay waxyaabihii maanta intana laga tusaayay marka looma qaadan kara marka in ay kicisay ama ay soo saartay ama ay la hadlaysay ama ay daawanayeen dad fara badan looma qaadan karo looma ictimaadi karo midda kale mudane gudoomiye lama muujinin ama lama helin dad ay hor istaagtay oo ay boorin ama kicin ay ku samaysay aaladan China Australia Europe meesha ugu sareyso Norway ilaa Mareykanka laga daawadaa marka waxayba ka baxsan tahay xadka la rabo in loo isticmaalo ayay ka baxsan tahay saas darteed marka looma ictimaadi kara ayadana in ay tahay inay kicisay ummad ama ay kicisay dad ay ku boorisay waxaan rabnaa inaan marka aan tilmaamo in aysan jirin falka lagu tilmaamay 269 faqradiisa labaad aan rabaa inaan tilmaamo
faqradda labaad waxaa waaye procedure ama qaab waaye oo la isticmaalo waaye oo qofka isticmaalayo ee la leeyahay wuxuu wax ku soo gudbinaa waaye wuxuu wax ku soo gudbinaa keliya ayay ka hadlaysaa faqraddaas waxaan ku raacsanahay qareen horaa ka hadlay ma rabin inaan sii gudo galo xoogga eedda marka ee xafiiska uu adeegsanayo waxaa waye 320 xeerka ciqaabta 320 ee xeerka ciqaabta marka hore waxaa la rabaa qofka la rabo in loo adeegsado in uu yahay qof siyaasiya qof hami siyaasadeed ay ku jirto qof dadku ay dhageysan karaan qof ku xiran ama leh shacbiyad asaga taageersan qof erayada uu soo gudbiyo ama uu dhaho xasiloonida iyo wadajirka dadka wax ka bedeli karo qof awood u isticmaali karo u adeegsan karo shareecada iyo cilmiga gaarka ah isku dhex dari karo oo adeegsan karo intaba ma aysan jirin waa hadal raqiis ah oo qof kastaba aragti gaar ah oo ka qaadan karo marka mar haddii aanan la helin qodobkaas tiirkiisii aasaaska ahay ee uu ku dhisnaan lahay annaga waxaan u gudbaynaa eed xoog lahna haatan ayan jirin waxaan u gudbaynaa in la diido eedda uu soo jeediyey eedda uu u soo jeediyey xafiiska xeer ilaalinta Sacdiye Macallin Cali Xasan in lagu waayo dambiilanimada lagu soo oogay caddayn la'aan in loo tixgeliyo in aysan horay fal nuucan oo kale ah maxkamad aan lala horkeen aan loo soo hor istaajinin in loo tixgeliyo xurriyadda hadalka iyo cabirka aragtida qofka taasoo uu damaanad qaaday dastuurka in la diido cabasho ama aragti la xiriirta ama ka gedisan sida ay u soo hor istaagtay difaaceedii markii ay ku jirtay wax ka gedisan in laga diido xafiiska xeer ilaalinta oo la qaato teeda in muuqaalada la soo baldhigay aysan ahayn caddaymo lid ku ah xasiloonida dadweynaha balse ay tahay aragti shakhsiyadeed in loo arko aragti shakhsiyadeed in xafiiska xeer ilaalinta uu ku guul daraystay in uu soo baldhigo marag ama caddaymo buuxinaya tiirarka dambiilanimada in maxkamaddu ay u celiso xurriyaddeeda Sacdiyo Macallin Cali Xasan maadaama ay tahay hooyo haysata gabar hal sano jir ah oo aabbaheedna ayan la nooleen oo ayadu ay ku xirneed nolosheeda loona ogolaado in ay la noolaato cunugteeda ayna xurriyaddeeda dib u hesho in maxkamadda aan ka codsanaynaa inta aan fasaxyada ciidaha xurriyadda wiigaga aan la galin maxkamaddu go'aan degdeg ah ay ka soo saarto maxkamaddu waa mahadsan tahay waxaan rabaa maxkamadda inaan u soo gudbiyo caddaymahan xafiiska xeer ilaalinta uu soo gudbiyo kuwa la mid ah waaye waxay tilmaamayaan ayadoo gacnaheeda aanan waxba ku haysanin wax kicin ahna ayan ka muuqanin qof taagan cimaamad garabka u saaran tahay ay la mid tahay waa mahadsan tahay maxkamadda